السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وسحورتيدي iyo salbukadaydii waa qofkii ugu dambeeya ahay oo salbuka kariyo ama maaragtay macnaha waa iga wada badisiin wax muhiimna ma ahan laakiin faa'iidooyin badan ay leedahay la yiri ma sha Allah tabarakallah. waxaan rabaa qaabkii iyo wixii aan ku cunay si yaro tartiiba inaan idin la wadaago. waan soo dhaqday salbukadaydii saa idin sheegay qofka ugu dambeeya ahay oo salbuka kariyo muddana way ii taale baxdaas markaan is iri muhiim weeye suxuurta idinkana sababta aan idinku soo galiyay videogan ayaa waxay tahay inay muhiim tahay in la suxuurto. daboolkii aan dhac siistay markaan soo dhaqday ka bacdi haddana shaahaygaan diyaarsanayaa mintahaasaan ku darsanaa ama nacnaac ayadana carabta aad ugu cabti shaaha marka aaday u fiican tahay bilaa sonkor ayadoo ah kaba si fiican meeshii sonkorta hadhowto markii lagu darsan lahaa markii karkarto oo karsanto diyaar noqoto aniga waxaan rabaa inaan isticmaalo geedkan ee carabta dhahaan xalaawa. waxaan kaga dhiganayaa booska sonkorta iyo booska saliidaan gelinayaa aaday u fiican tahay waa la ii ammaanay weliba waxaa la yiri hargabku aad ugu sii fiican yahay saliidiisa aaday u caraf badan tahay geed kaleeto taxiinay la dhaho ayay carabta ku sii darsadaan hadday rabaan ilmaha xataa iyo ayaga laftigooda markay subaxii iskuulada iyo shaqooyinka aadayaan laba qaato waxbay cunaan energy badan uu leeyahay. qofkii maantay gadanayay oo aan weydiiyeyna wuxuu igu yiri hargabku u fiican yahay haddaa riiraxyo iyo iska dareentid dhac isku sii. anyway waa idiin soo gelin doonaa sawirkiisa si fiican anaana caawa qiraya waa markii ugu horeysay oo aan digir ku cuno maasha Allah tabarakallah kuma darsanin saliid kale wax kale tamaana taabsin qofkii rabo ku darsan karaa laa ba'sa bihi. marka meeshii micnihii sonkor tira badan iyo malab iyo waxyaabo qofkii doona horta micnihii asaga iskale choice-kiisa laakiin aniga markaan tijaabiyay maasha Allah tabarakallah waxaan jeclaaday idinka inaa ila tijaabisiin. maybe waxa laga yaabaa in dad jiraan aysan waxaysan aqoonin tijaabiya laakiin waxaan aad uga helay markii la yiri riiraxyada iyo hargabka markuu kugu soo socdo dhac isku sii xoogaa yar geedka wuu fadhiyaa wuu adag yahay sidiisa u cuni kartaa haddaad doontid haddaad rabtid taxiinigaasaa kula darsan kartaa adiga ku qusaysaa waa macmacaan waa xalaawaad geed yaroo ku dahaarnaa haddana waa ka bixinayaa marka aad baan uga helay caraftiisana lama soo koobi karo maasha Allah tabarakallah. anaa taa idinka tijaabiyey saliidiisaasna waa saliidda uu la yiri hargabka iyo riiraxyada iyo maaragtay cunaha hadday ku xanuunaan ayaa u isticmaalaysaa. qofkii rabana wuxuu rabaa asaga salbukadiisa ha ku darsado asaga qusaysaa laakiin geedkan aan rabay inaan idinla wadaago idinla soo qufaayay maanta oo dhan markii la ii ammaanay horaan kasoo dafay wixii la ii ammaana waa jeclahay. lows yaro ayuu leeyahay maasha Allah tabarakallah caraftiisana maasha Allah tabarakallah aad baan uga helay maasha Allah. wariyaan idinku daalinin shaahaygii mintaha lahaa waa soo samaystay salbukadaydii waa kusoo darsaday geedkii xalaawaadka ama xalaawa la dhahayay qofkii rabana waa kaasaa ha ka qaato sawir shirkadda uma xayeysiinayo laakiin qofkii qaadanayay wuxuu igu yiri maasha Allah noocaana ugu fiican asagoo raadinaya marka arkay kuuriyoosa anagana ku noqday marka arkay inuu soo qabsaday wuxuu yiri waa nooca ugu fiican oo aan jeclahay. anyway waxaad dhihi lahaa suxuur wanaagsan.